doorashada xildhibaanada aqalka sare ka koobaad ee faqradda saddexaad 49 xubnaha ku tartamaya kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa cod qarsoodi ah oo madax bannaan ku dooranaya kaliya muwaadiniinta degan dowlad goboleed kaas ee buuxiyay shuruudaha codbixiye in dowlad goboleedkaasi ay doortaan xildhibaanada ama senatarada ka soo jeeda aqalka sare waa ay fiican tahay laakiin dastuurku waa generic waa dokumenti guud oo mabaadi'da guud inuu dhigo ay tahay waayo mustaqbalka mar walba dib looguma noqon doono dastuurka in wax laga bedelo marka haddii imaka duruuftu ay qasbayso aynu isdhegaysano haddii duruuftu ay qasbayso in dowlad goboleed masalan hirshabeelle koonfur galbeed galmudug ay doortaan senatarada metelaya xaaladda hadda aynu ku sugannahay awgeed marna waxay noqon doontaa in gobollo loo sii kala qaybiyo kaba soo qaad hirshabeelle 8 senatar baa ka yimaada laba gobol weeye 4 iyo 4 taasay noqonaysaa haddana degmooyinka in loo sii dhaadhiciyo isku duuduubkan hadda dowlad goboleedkii oo dhan la leeyahay mar dhow inama anfacayso oo marka amniga iyo xasilooniyada deganaanshuhu hana qaadaan waxay noqonaysaa in degmada loo sii kala jabiyo gobolkii 4 degmo leh 4 senatar ay ka soo baxaan marka anu waxaan soo jeedinayaa duruufta hadda aynu ku sugannahay sharciga doorashooyinka xakamayn doona wixii mabaadii guuda siiqo xadidaysa oo tan sidan oo kale ayaan loo qorin ayaan oran lahaa ee in dowlad goboleedku uu dooranayo laakiin mar dhow sharciga doorashada fursad loo siinayo in wax laga bedelo gobollo loo sii kala jabin karo degmooyin loo sii kala jabin karo waxaa iyadana la mid ah 49 faqradeeda afraad xubnaha ku tartamaya guraasta golaha wakiilada ee dowlad goboleed kasta waxaa si toos ah oo qarsoodi ah oo madax bannaan ku dooranaya dhammaan muwaadiniinta degan dowlad goboleedka marka masalan haddana dowlad goboleed ka soo qaad galmudug waxaa wada dooranaya reer galmudug oo dhan baarlamaankii imaka duruuf baa kalifaysa laakiin hadhow waxay noqon doontaa in gobol iyo degmooyin loo kala jabiyo marka inay dowlad goboleedkaasi dooranayaan un ha lagu daaye dhammaanta waa jibinaysa ha laga saaraan soo jeedinaya oo ha loo qoro siiqo guud dastuurku waa generic document mar kasta waa inuu ahaadaa clear concise and wide inuu cad yahay inuu kooban yahay inuu nuxur ballaadhan ku fadhiyo marka taasaa inaynu gacmaha iska xidhno mar walba in dastuurkii dib loogu noqdo wax laga bedelo inoo fududaynaysa waana sida dasaatiirtu guud ahaan u qoran yihiin qodobka 54 tartanka xisbiyada siyaasadda heshiiska ku soo salayseen cutubkan afraad ee 3 qodob wax ka bedelay sida ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha doorashadiisii tooska ahayd iyo xisbiyadii saddexda lagu xadiday waxa uu abuurayaa in urur iyo xisbi ay shakhsiyad qaanuun oo kala duwan leeyihiin marka halkan doorashooyinka hay'adaha kala duwan waxaa ku tartamaya xisbiyada siyaasadeed ee sida rasmiga ah ugu diiwaan gashan guddiga madaxa bannaan hadda xisbi siyaasadeed lama diiwaan gelin karo ururo siyaasadeed baa la diiwaan gelinayaa shuruudihii xisbiga si waafaqsan buuxinaya mar dhow marka ururadaasi tartamaan ayaa kuraasta ay baarlamaanka federaalka ku helaan baa xisbi loo rogaya marka hadda yaan la odhan xisbi urur marka xisbi jiritaan buu mar dhow yeelan doonaa qaanuuni ah haddase waa urur siyaasadeed oo kuraasta uu helay xisbi ku noqon doona marka taana urur aan gelino waxaan u imanayaa markii cutub 4 cutub aynu ansixinay guddidu warbixin bay halkan ka bixisay lifaaq warqad 3 qodob ka kooban taasoo ahayd in da'da qaangaadhka oo dastuurkii 18 jir u yaqaanay ay culimada Soomaaliyeed qayladhaan ka keeneen xorriyadda diintana qayladhaan ka keeneen nimankan xalana deganina ay qisaasta qayladhaan ka keeneen marka 3 qodob waxa la yiri dib baan ula noqonay ee dood baa ama ka furnaan doonta ama hadhow ardan baa la xallin doonaaye hadda kuma jiraan inta la ansixinayo
صدح دي قدود دودي عتب كافرادنا كما يدان صدرين عتب يدا كلا شنتن أهو لقيبين كما جيران marka iyaga maxaa lagu xaliyay magashaanti aamus baa lagu meheriyaaba oo waynu ka aamusnayno sidaas ay inoogu qornaan doontaa waxaan u soo noqonayaa marka cutubkan afraad oo doorashooyinka iyo xisbiyada ka hadlaya isbedelka lagu sameeyay wuxuu u baahnaan doonaa in xeerarka doorashooyinka iyo axsaabta dib loogu noqdo gabi ahaantoodaba iyo jadwalka si lifaaqa dawlad goboleedyada awoodaha ay leeyihiin waxa ku xusteen doorashooyinka dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka waxa la siiyay dawlad goboleedyada oo saddex heer haddana lifaaq ah geliseen marka saddexda heer ma baarlamaankii dawlad goboleedka iyo dawladihii hoose heerka kale saddexaad muxuu yahay xildhibaanada ka soo heer federaal ee ka soo baxaya dawlad goboleedka ma dawlad goboleed guddi doorashay leedahay baa shaqo ku leh mise guddi doorasho guud oo midaysan baa dalka doorashooyinka qabanaysa halkaana muhmal baa ku yar jira waa caddayn doontaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.